Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada jaalayaal xalqadii labaad ee Smooth English System Podcast qaybtiisa Soomaaliga. Halkan waxaan uga hadalnaa ciwaano muhiima lana xiriira barashada luqadda Englishka. Maanta waxaan si qoto dheer uga hadli doonaa psychology ama cilmi nafsiga iyo sida uu u saameeyo barashada Englishka iyo sida aad uga faa'iideysan karto ama aad u baran karto Englishka waliba adigoo isticmaalaya psychologiyadaada ama si caqli badan halkii aad si adag u shaqayn lahayd. Xalqadeena maanta waxaan ka jawaabi doonaa su'aalo ay dadka intooda badan isweydiiyaan. Ma fahantay weligaa English laakiin ma kugu adkaatay inaad ku hadasho? Ma la kulantay weligaa kalsooni la'aan zaa'id ah ama wadna garaac? Adigoo information badan haya ayaa iska doorbidaa inaad iska aamusto halka dadka kale oo informationka ay hayaan ka liito midkaadana ay ra'yigooda dhiibanayaan ama ay hadlayaan. Ma kugu dhacday taas weligaa? Haa, anigu igu dhacday saaxiib. Waxay ahayd abbaara 10kii subaxnimo semestaradeennii hore ee jaamacadda semester 1 ama 2. Sida caadada ah marka jaamacadda lagu cusub yahay ama semestarada hore waxaa la qaataa maadooyin university requirements ah aan xiriir la lahayn fieldiga aad baranaysid ay qasab tahay ama ay waajib tahay inaad qaadataa. Sidaasi la mid ah maalintaasi waxaan fadhinay kalaas aan ku qaadanaynay Carabiga al-lughatu al-arabiyya yaa saax. Marka waxaa jirtay sheeko xasaasi ah oo lagu qaato form 4ka oo ahayd qisatu Ashcath. Macallinkeenii Carabiga noo dhigayay ayaa wuxuuna weydiiyey qisadaasi. Yaa wax ka xasuusto qisada Ashcath? Markaas baa ardadii oo dhan waxay dhaheen haa macallin waan xasuusanaa. Macallinkii baa yidhi okay haddaa xasuusataan yaa wax nooga sheegi kara qisooyinkiisa. Ardaygii koowaad baa istaagay wax buu ka sheegay, kii labaad sidaas camal, kii saddexaad sidaas camal. Ani weli ma istaagin oo waan fadhiyaa. Carabigu waxay ahayd maadooyinka aan ugu jeclahay mid ka mid ah. Sheekadii oo dhan baan kor ka hayaa, laakiin yaa waayahay qofka istaagaya? May ani maahi. Haa, ani kuma jiri saaxiib. Haddii aad taasi la kulanto ogow, taasi keliya maaha dhibaato luuqadeed ama dhibaato ka haysata luuqadda, laakiin waa arrin cilmi nafsiga la xiriirta. Cilmi nafsigu waa cilmi lagu daraaseeyo maskaxda, fikirka, dareenka iyo dhaqanka dadka. Marka aan ka hadlayno barashada luuqad, cilmi nafsigu wuxuu inoo iftiimiyaa sida fikirkeena iyo dareenkeena u saameeyaan awoodaha aan ku barano luuqad, sida walbahaarka, cabsida iyo kalsoonida ay u go'aamiyaan heerarkeena waxbarasho ama horumarkeena waxbarasho. Barashada Ingiriisiga waa wax ka badan erayo iyo jumlado, waa isdhexgalka maskaxda, dareenka iyo tababarka. Maxaa ka hortaagan ku hadalka Englishka waliba si hufan? 1. Cabsida, cadaadiska iyo fikirka badan. Aan ku bilowno cabsida. Cabsida ugu badan waa in lagugu qoslo ama lagu xukumo marka aad khalad samayso. Maskaxdu waxay isku daydaa in ay iska ilaaliso khaldaadka ama ceebaha. Sidaa daraaddeed waxay kuu qasabtaa inaad iska aamusto. Haa, cidna kuma dhiirato inay wax qalad ah ay samayso ama ay dadku ay ku maadeystaan ama cidna kuma faraxdo qaldaadkeeda. Sidaa daraaddeed optionka ugu fudud baa wuxuu yahay ay naftu ku siinayso marka aad qalad samayn rabto ama marka aad rabto wax inaad isku daydid waxay ku leedahay may waxaas ha isku dhibin, ha samaynin. Laga yaabaa inaad qalad samaysid, laga yaabaa inay dadku kugu qoslaan, laga yaabaa inay dadku kugu maadeystaane iska aamu. Midda labaad waa cadaadiska. Marka uu qof kugu yiraahdo hadda ku hadal Ingiriisiga, waxaad dareemaysaa in waqtigu kugu yar yahay ama ciriiri kugu yahay. Taasi waxay kordhinaysaa heerka walbahaarka, maskaxduna waxay lumisaa diiradda. 3. Fikirka badan. Tani waa marka aad ka fikirto erey kasta iyo jumlad kasta ka hor intaadan ku hadlin. Tani waa marka aad ka fikirto wax walba. Tusaale ahaan, si aan Englishka u barto ama si aan Englishka si fiican aan uga hadlo, waxaan u baahanahay 300,000 oo erey ama vocabularies ama 400,000 oo saacadood inaan wax dhagaysto. Ay muhiimna ahayn inaad ka fikirto. Haddii aad bilowdo inaad ka sii fikirto, aad sii xisaabiso. Taasi waa overthinking. Taasi waa fikir badan. Saameyn ay kugu reebaysaa. Saameynteeduna ma aha mid wanaagsan. Iska ilaali inaad ka fikirtaa tilaabo walba. Baro wax yar si fudud si aad ku raaxaysanaysid. Sidaas baa wax lagu gaaraa. Marka aad walbahaarka ku jirto, wadnahaaga ayaa si degdeg ah u garaacma, neefsiga ayaa yaraada. Qaybaha maskaxda ee xusuusta gaaban waxay bilaabaan inay hoos u shaqeeyaan. Natiijada erayadii aad rabtay inaad tiraahdo way ka kala lumayaan. Marka aad degan tahay, aad kalsoonid leedahay, xusuustaadu waxay u shaqeynaysaa si fiican. Maskaxdaadu waxay ka shaqeysaa sidii ay erayada iyo jumladaha uga soo saari lahayd meel ku habboon. Hadalkaagu wuxuu noqdaa mid iskiisa u socda. Halkan waxaan ku haynaa talooyin 4 ah oo lagu jabiyo caqabadahaas. Midda koowaad waxay tahay neefsasho dheer.
ogolow inaad samaysid qaldaad. Midda saddexaada waxay tahay waxaad ku practice garaysaa real life-ka. Midda afraada waxay tahay waa inaad yeelataa maskax koritaan leh. Okay, midda koowaada waxay tahay ku tababaro neefsashada qotada dheer. Marka aad dareento walbahaar, qaado 3 ilaa 4 neefsasho oo qoto dheer. Tusaale, waa sidaan. Neefsashada qotada dheer waxay kaa caawinaysaa inay dejiso jidhkaaga, waxayna ka qaadaa maskaxdaada dareenka degdega ah. Aqbal khaldaadka. Khalad samaynta waa qayb ka mid ah barashada. Qof kasta oo luqad cusub bartaa wuu khaldaa. Farqiga u dhexeeya kuwa guulaysta iyo kuwa guuldaraysta waa in kuwii guulaystay aysan ka cabsan khaldaadkooda. Ku celceli xaaladaha dhabta ah ama ku practice garay real life-ka. Iska dhig inaad suuqa joogto ama saaxiibada kula hadlayso ama aad dalbanayso cunto. Marka aad ku tababarato xaaladaha nolol maalmeedka, maskaxdaadu waxay ula qabsataa si dhaqsi leh. Midda afaraad ee ugu dambaysa waxay tahay samee maskax kobac leh. Ha oran anigu kuma fiicni Englishka ee dheh weli ma fiicni oo heerkaan raba weli ma gaarin oo weli sidaan rabay uma hadli karo. Ereygaas yar baa wuxuu abuurayaa rajo iyo dhiirigelin mustaqbal. Markaad English barato, xusuustaadu way xoogaysataa. Erey kastoo cusub waa jimicsi maskaxeed. Maskaxdaadu way dabacsanaataa. Waxaad barataa inaad fikir ka beddesho luuqad ilaa luuqad kale, taasoo ka dhigaysa xallinta mushkiladaha mid sahlan. Kalsoonidaadu way kortaa. Awoodda aad uga hadasho luuqad cusub waxay kaa dhigtaa inaad isu aragto qof awood badan. Adkaysiga shucuurta. Barashada luuqad waxay ku baraysaa dulqaad iyo adkaysi. Dhegaystaha qaaliga ahow, barashada Ingiriisigu waa safar maskaxeed iyo shucuur. Waxay kugu tijaabisaa cabsadaada, kalsoonidaada iyo adkaysigaaga. Laakiin haddaad fahanto sida cilmi nafsiga u shaqeeyo, waxaad ka dhigi kartaa safarka mid degdeg ah oo xiiso badan. Maskaxdaada ka dhigo saaxiibkaaga ugu weyn ee safarka, sababtoo ah marka maskaxdaadu furfurnaato, luuqadu si dabiici ah ayaad u baran kartaa. Daawadahiga qiimiga badano, xalqada maanta halkaas ay noo joogto. Like-ta iyo subscribe-ta waa adiga iyo gacantaada. Waxaan idinkaga tagayaa maca salaama.